Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Ugu horeyn, maanta waxaan soo jeedinaynaa qofka siduu ku guuleysan karaa. Horta qof walba wuu guuleysan karaa. idan ayuhal axibba, talidu waxaa weeyaan ilaahaygiina abuuray ayaa yaqaano naftan waxay ku islaaxayso. Isagaa abuuray, isagaana yaqaano waxay ku islaaxayso. Waxay ku islaaxaysana rususha ayaa nagula soo dhiibay. Rusushana waxayna bareen sidaan rabbigeena ku caabudi lahayn, aan qof toosan oo quman oo wanaagsan aan ku noqon lahayn, si aan natiijada aakhiro natiijo fiican aan u heli karno. Adduunkan waxaa noola sheegay inuu imtixaan yahay. Wixii nagula imtixaanana waa inaan ku sabarno ama aan ku shukrino. Haddaad caafimaad qabto, inaad ku shukriso. Haddaad xanuunsan tahay, inaad ku sabarto. Hadday nolosha sidaas noqoto, way fududaanaysaa. Dhadhan iyo macaan way yeelanaysaa. Waayo tumaniinatul qalbi qofka hadduu helo iyo Ilaahay raali ahaanshihiisa, wax ka maqan ma jiraan. Walidaalika waxaa la sheegaa culimmadii waaweynay rag ka mid ah Munalhaybal ibnu Hadal ayaa waxaa la sheegay wabiga Furaad ayuu rooti qalalan inuu darsaday, dabadeedna waa cunay. Markaasuu wuxuu yidhi, nimcadaanu haysano hadday boqorada ogaa lahayd waynu la darari lahayd. Ninkaas adduunka wuxuu ka wataa rooti qalalan, ciidaankiisana waxaa waaye wabigaas. Wuxuuna leeyahay low calimatil muluuk, waynu la diriri lahayd nimcada haysana hadday ogaa lahayn boqortooyada, yacni boqorada. Waayo ninkan tumaniinatul qalbi buu hayay. Ilaahay buu rumeeyey oo caabuday oo ku kalsoonaaday. Nolosha hadafka laga rabay ayuu garanayay. Sidaas buu u arkayay nin cala dariiq ah, jidkii saxa ninkii hayay inuu yahay. Idan waxa kaa maqan maaha wax kaa farxiya, waa waxa qofka uu haysto iyo waxaad dareemayso iyo waxaad ku fikirayso iyo waxa hami ah oo ku haya. Kaas baa ah waxa farxad geliya. Waxaan ku soo koobayaa in madaxweyne la noqdaa guul maahan, waa mas'uuliyad la kororsaday. In lacag badan la helaa guul maahan, waa mas'uuliyad la kororsaday. In magac la helaa guul maahan, waa mas'uuliyad la kororsaday. Laakiin ama madaxweyne ahaw, ama taajir ahaw, ama nin caan ahaw, ama miskiin ahaw, waa inaad Ilaahay reeligelisaa. Taas baa guul ah. Idan qof walba wuu guuleysan karaa. Haddaad tahay nin madaxweyne oo dhaqan wanaagsan oo caqiidadiisu fiican toosan aad tahay, waad guuleysan kartaa. Imaamka caadilka ama amiirka caadilka ah wuxuu ka mid yahay 7 carsho raxmaanka harsanaya. Haddaad tahay nin dhalinyaro oo dhowrsoon, waad guuleysan kartaa. Shaabun nasha'a fi cibaadatillaah, qof yaraantiisa oo cibaadada Ilaahay ku soo barbaaray, waad guuleysan kartaa. Carsho raxmaanka ka mid tahay. Yacni mustamaha nololeed aad joogto guusha kuma xirna. Waad kadeednaan kartaa adigoo madaxweyne ah. Waad kadeednaan kartaa adigoo magac iyo maamuus leh. Waad kadeednaan kartaa adigoo taajir ah. Waadna kadeednaan kartaa adigoo faqiir ah. Intaba kadeedka wuu la socon karaa, guushana way la socon kartaa. Guusha iyo guuldarada kuma xirna inaad magac iyo maamuus aad leedahay iyo waxaad haysato kuma xirna, wuxuu ku xiran yahay rabbigaaga intaad xiriir la leedahay, inta aad nolosha macnaheeda aad fahmayso, inta aad garanayso maxaad u nooshahay. Maanta hadduu qof dhaqaaqo oo socdaal galo oo meel u dhaqaaqan aysan jirin, oo yiraahdo mar nasanayo, uu socdo daalo, muxuu kororsaday? Waxba sooma kororsan, soo maa? Marka qofka laakiin hadduu hadaf leeyahay, mar waa gaari doontaa haddaaba hadaf leedahay. Laakiin haddaadan hadaf saxa oo taagan oo loo jeedo aadan lahayn,
ogow 60 sano 70 sano lagu siiyey way dhammaanaysaa. aad rabbigaaga raadi geliso, jannada aad raadiso, naarta aad ka cararto intaad ka carari karto. intaa haddaad kari weydo nolosha qiimo ma leh, wax kastoo agtaada yaalana qiimo ma leh. waad kadeedantahay, inta kadeedan baad ku jirtaa. dhibkan haysta waxaa weeyaan dadka mawaasiimta ayaa laga qabtay. waxay wax ku qiimeyn lahaayeen waxay hadda wax ku qiimeeyaan gaari, guri iyo hanti badan oo la tabco. qiimaha qofka ma ahan imise gaariyo wataa, imise guriyo leeyahay. qofka rabbigiisa intuu ugu dhow yahay ayuu qiimihiisa dhabta u yahay. taas baana aakhiro markii laiskugu yimaado wax anfacda. adduunka inta la jooganayo qofka kadeed ka bixisa. intaasaa jeclaysteen inaan soo gudbiyo. asalaamu calaykum waraxmatullah.